الحمد لله رب العالمين، صلى الله وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ما بعد، درسينا وكيل لبعض كمل تفسير كمختصر كها وحكبل أبنيا حزب كلبعض. قال تعالى ألا وحيري أفتطمعون مؤمنين ما وحد فلان إيسان أن يؤمنوا في أن يؤمنوا قالوا إني إذين رميان waxa aad sheeganaysaan lakum idinka wal xaal qad kaana ay ahaayeen fariiqun kooxdaasoo minhum gaalada ka mid ah yasmacuuna kuwii dhegaysta kalaamallaahi ilaahay hadalkiisa thumma yuxarifuuna markaasay leexin jireen hu hadalkii alle min bacdi maa muddo ka gadaal caqaluu ay fahmeen hu hadalka alle wal xaal hum ayaguna yaclamuuna ay og yihiin hadalkan ay leexinayaan hadalkii ilaahay inuu yahay ayagoo garanaya inay beenaaliyaal yihiin og. wa idaa goortii laquu ay la kulmaan alladiina kuwa aamanuu xaqa rumeeyey qaaluu waxay lahaayeen waa qolyo yuhuudda ka mid oo munaafiqiina markay mu'miniinta la kulmaan aamanaa waan rumaynay. wa idaa goortii khalaa uu u noqdo bacduhum qaarkood ilaa bacdin qaarka kale oo ay la gooni noqdaan waydaa goortii khalaa ay la gooni noqdaan bacduhum qaarkood ilaa bacdin qaarka kale qaaluu waxay leeyihiin kuwii gaalada ahaa ee gaalnimadooda caddaystay ayaa munaafiqiintii waxay ku leeyihiin atuxadithuuna ma waxaad uga warramaysaan hum mu'miniinta bimaa waxa fataxa uu furay allaahu alle calaykum dushiina waxa ilaahi uu idiin furay miyaad uga warramaysaan qolyahan muslimiinta ah liyuxaajuukum say idinkaga gar helaan bihi shaygaas cinda rabbikum rabbigiin agtiisa afalaa tacqiluun maydaan wax garanaynin. qiyaamaday odhanayaan rabbiyo nimankan xujadii waa ku ognay maxaasaa u samayseen. awalaa yaclamuuna ilaah wuxuu yidhi miyaynan ogeyn waa gaaladii annallaaha alle yaclamu inuu og yahay alle maa waxa yusiruuna gaaladu ay qarsanayaan iyo wamaa waxa yuclinuuna ay muujisanayaan. gaal iyo muslimba waxay bani aadamku ay muujistaan iyo wixii kaleba ilaah waa isugu mid. wa minhum gaaladii waxaa ka mid ah ummiyuuna hooyadood kuwa loo aaneeyey ummiyiintaasoo laa yaclamuuna aan garanayn alkitaaba wax kitaab uu yahay aan garanaynin kitaabkii towraadaha aan waxba ka garanaynin ilaa amaaniya yididiila mooyaane. wa inhum maahum ayaguna ma ahaan ilaa yadunnuuna kuwa malaynaya maahan oo ficilka danaa laba mafcuul buu qaataayoo labadii mafcuulba waa xadfan yihiin. ilaa yadunnuuna kuwa malaynaya mooyaane al abaatiila waxyaalaha baadilka ah ee xaqan xaq moodaya. fa weylun halaag daran liladiina kuwiibuu u sugnaaday yaktubuuna qorayay alkitaaba kitaabka biaydiihim gacmahoodana ku qorayay. huma yaquuluuna deedna waxay lahayeen haadaa kitaabkani min cindillaahi ilaahay agtibuu ka ahaaday waa waxay iyagu qorteen liyashtaruu say ugu soo badashaan bihi kitaabka yalle thamanan lacag qaliilan ee yar oo ishtiraa maanta waa istibdaal baa macnihiisa la dimnisiiyey say ugu soo gataan. fa weylun halaag daran liladiina kuwiibuu u sugnaaday fa weylun halaag daran ayaa lahum ayaga u sugnaaday mimaa shay xaggii bayna uga sugnaatay katabad ay qortay aydiihim gacmahoodu meelaan gacmaha wax laguma qoree xumaha ayaa lagu sii dhajin. wa weylun halaag daran baa lahum ayaga u sugnaaday mimaa shay xaggii buuna uga sugnaaday yaksibuuna ay shaqaysanayaan. wa qaaluu waxay yidhaahdeen waa yuhuuddii iyo kiristaankii lan tamassanaa na taaban mayso annaaru naari na taaban mayso ilaa ayaaman maalmo mooyaane maalmahaasoo macduudatan la tiriyey maalmihii aan dibiga caabudnay. qul waxaad dhahdaa attakhadtuma waxaad yeelateen cindallaahi ilaahay agtiisa cahdan ballan inay hawshu sidaa tahay oo falan yukhlifa ka bixi mahaya miya allaahu alle cahdow ballankiisa. taasi waa kow. midda labaad am taquuluuna mise waxaad leedihiin calallaahi alla dushiisa maa shay laa taclamuuna idaan garanaynoo been abuurad ah. aleelahay kan dambaa saxoo beenaalayaal baa tihiin. balaa arrinku saad moodeen ma aha oo ah naartu maalmo mooyaane inaysan idin taabanayn man ruuxii kasaba shaqaysta sayi'atan xumo
oo wa axaatat ay hareerayso bihi asaga khati'atuhu gafafyaalkiisu ay hareereeyaan. ayib waxaa khati'atuhu loo leeyahay sidaas loo samaynayaa qof mushkila ay dhan walba ka xigto oo badbaadadiisu ay adkaatay oo kaleeta lagu tusaalaynaya oo wa axaatat ay hareeraysay bihi asaga khati'atuhu dhibaatooyinkiisa iyo xumihiisa fa ulaa'ika kuwaasi asxaabu naari naarta asxaabteeda weeye hum ayagu fiihaa naarta dhexdeeda khaaliduuna kuwa ku waaraya weeyaan. waladiina kuwa aamanuu xaqa rumeeyo wa camiluu sameeyey assaalixaati acmaasha wan wanaagsan ulaa'ika kuwaasi asxaabuljannati jannada asxaabteeda weeye hum ayagu fiihaa jannada dhexdeeda khaaliduuna kuwa ku waaraya weeye. waid akhadnaa wadkur dadka u sheeg id waqti akhadnaa aan qaadnay mithaaqa bani israa'iila ilma yacquub ballankoodii laa tacbuduuna oo waqulnaa aan ku niri lahum ayaga laa tacbuduuna caabudi maysaan ilallaaha alla mooyaane. 1 2 wa bilwaalidayni wastawsuu isu dardaarma bilwaalidayni labadii idin dhashayna ixsaana wanaag. 3 iyo wadil qurbaa qaraabada kuwa u saaxiibka. 4 iyo walyataamaa agoonta iyo walmasaakiini saboolka masaakiinta. waquuluu u dhahayaa linnaasi dadka gaal iyo muslimba xusna wanaag. wa aqiimuu toosiya assalaata tukashada wa aatuu bixiya azakaata zakada. 8 qodob ayaa la idin faray. huma tawallaytum waa jeensateen ilaa qaliilan wax yar oo minkum idinka mida mooyaane intiini kale waa jeensateen. walxal antum idinkuna mucriduuna kuwa jeenstay oo fogaaday aad tihiin. waid akhadnaa miithaaqakum wadkuruu xusuusta id waqti akhadnaa aan qaadnay miithaaqakum ballankiina oo muxuu ahaa 3 qodob buu ahaa. 1 laa tasfikuuna daadin maysaan dimaa'akum dhiigagiina haddaad tihiin yuhuud oo isdili maysaan. walaa tukhrijuuna bixin maysaan anfusakum naftiina min diyaarikum guryihiina oo qaarkiin qaarka kala barakicin maayo. humma aqrartum waad qirateen arrinkaas oo qiraar baad la timaadeen macnaha waad aqbasheen ballankaas. walxaal antum idinkuna tashhaduuna kuwa markhaati kacaya tihinoo naftiina ku markhaati kacaya. humma antum idinku haa-ulaa'i yaa haa-ulaa'i kuwanow taqtuluuna waa dilaysaan anfusakum naftiina oo waad islaynaysaan ballanka waad ka baxdeen. 2 wa tukhrijuuna waad saaraysaan fariiqan gabal oo minkum idinka mida min diyaarihim guryahoodaad ka saaraysaan oo isbarakicinaysaan. tadaaharuuna xaalaad isu kaalmaysanaysaan calayhim calaa ikhraajihim kuwa ayagaa saaridooda bil ithmi dembi iyo walcudwaane gardarro. wain ya'tuukum hadday idin yimaadaan kuwii aad saarteen ama aad la dagaalamayseen ama aad dilayseen usaaraa xaalay yihiin kuwa maxaabiise lasoo qafaashay tufaaduuhum waad furanaysaan. walxaal huwa sha'nigu uu yahay oo damiirkan huwada waa sha'ni muxaramun mid la diiday inuu yahay calaykum dushiina ikhraajuhum saaridooda. inaad saartaanna xaaraan bay idinka ahayd, inaad madax furasho ka qaadaanna dee wax idin saaran bay ahayd. afa tu'minuuna ma rumaynaysaan bibacdi alkitaabi kitaabka qaarkiis oo ah inaad maxaabiista soo daysaan. wa takfuruuna ma ka gaaloobaysaan bibacdin qaarka kale oo dee dardaarankii ahaa islaynin oo isbarakicnina waa diideen. famaa jazaau man maadaa naafiyana waa laga dhigi karaa istifhaamiyana waa laga dhigi karaa. haddii naafiye laga dhigo famaa jazaau man ruux abaalki ma aha yafcalu samaynaya daalika arrinkaasoo ballanka baxa ah minkum idinka xaggiina xalu ka ahaaday mankaasi ilaa khizyun hoog maahana wax kale abaalki ma aha. filxayaati dunyaa filxayaati noloshii dhexdeeda uu hoogayo noloshii addunyaa ee dhoweyd. wa yowma alqiyaamati qiyaamada maalinkeedana yuradduuna waa la celin doonaa ilaa ashaddi alcadaabi cadaabkiisa ugu adkaansho badan. wamallaahu allana bigaafilin mid moog ma aha camaa waxa tacmaluuna aad samaynaysaan. maada haddii istifhaamiye laga dhigana waxay noqon famaa jazaau man ruux abaalki miyuu yaha yafcalu samaynaya daalika arrinkaas. ayib ulaa'ika kuwaasi aladiina kuwii weeye ishtarow iibsaday alxayaata noloshii addunyaa ee dhoweyd bay bil aakhirati aakhira ku iibsadeen. falaa yukhafafu looga jimcin maayo oo laga fuudayn maayo canhum xaggooda alcadaabu cadaabka walaa hum ayagana yunsaruuna kuwa loo gargaaraya ma ah. walaqad aataynaa waan siinay muuse nebi muuse alkitaaba kitaabkii towraad ahaa wa qafaynaa waxaan raacsiinay min bacdihi asaga gadaashiisa birusuli rusul. wa aataynaa waxaan siinay ciisaa ciisihii ibna maryama ina maryama ahaa albayinaati caddaymo. wa ayadnaa waan taageernoo xoojinay hu asaga biruuxil qudusi
dahirnaanta iyo nadaafada ruuxdeed iyo malku jibriil ayaan ku xoojinay afa kullama markasta oo jaa'akum uu idin la yimaado rasuul bima shay la tahwa aysan rabin oo jeclayn anfusukum naftiina istakbartum wa isweynaysiinaysaan miya fa fariiqan koox kamid ah anbiyadii ilaahay rusushii alle kadabtum waad beeniseen wa fariiqan kooxna taqtuluuna waa dilaysaan wa qaaluu waxay yiraahdeen quluubuna quluubteenu gulfun mid daboolan wey tafsiir labaad baa wuxuu yahay quluubuna quluubteenu gulfun waa weel wax walba ay weeleenaysaa waxa aad sheegaysaa hadduu sax yahay waa horaanu xifdin lahayn tafsiirka horena loo badan yahay qulfun inay dabool ka wadaan bal iskaba dhaafe lacana wuu lacnaday hum ayaga allaahu alle muxuu ku lacnaday bikufrihim gaalnimadooda sababkeeda fa qaliilan waxaa yar maa inta yu'minuuna xaqa ay rumaynayaan walamaa goortii jaa'a uu u yimid hum ayaga kitaabun kitaab waa ahlu kitaabkii kitaabkuna waxaa weeyaan waa qur-aanka kitaabkaasoo min cindillaahi ilaahay agti ka ahaaday kitaabkaasoo musadiqun rumaynaya limaa wixii macahum la jirankooda ahaaday oo towraad ahaa wa kaanuu waxayna ahaayeen min qablu hadda ka hor kitaabkan qur-aanka intuusan u imaan yastaftixuuna kuwii gargaar iyo gurmad codsada cala aladiina kuwii dushooda kafaruu gaaloobay oo mushrikiinta ahaa oo waxay odhan jireen marka maxamed lasoo saaraan idinla dagaalami doonaa nebi baa lasoo saari doonaa falamaa goortii jaa'a uu u yimid hum ayaga maa shay carafuu ay garteen oo waa maxay shayga ay garanayaan waa xaqii oo nebiga soo saaridiisii ah kafaruu way ku gaaloobeen bihi shayga ay garteen falacnatullaahi ilaahay naxariistiisa oo laga dheereeyo calal kaafiriina kuwa gaaloobay dushooda ha ahaato lacnada allah ku dhacdo bi'sa alla xumaa maa shayga ishtarow ay u soo iibsadeen bihi shaygaba anfusahum naftooda oo muxuu yahay shaygaasi an yakfuruu wahuwa shaygaasi an yakfuruu inay ka gaaloobeen weeye bimaa shaygii anzala uu soo dejiyey allaahu alle baqyan xasadnimo darteedna ay uga gaaloobeen ay xasdayaan an yunazila inuu soo dejiyo allaahu alle min fadlihi ixsaankiisaoo waxyiga ah calaa man ruux dushiya shaa uu doono nebi maxamed oo min cibaadihi addoommadiisa ka mid ah fa baa-uu way noqdeen waa gaaladii biqadabin xalayhim kuwa cara ku dul sugan oo jaara majruurkan laga xaaleeyo wowda baa-uu ku jirta caradaasoo calaa qadabin cala kala dul saaran oo waagii ahlu kitaabka diintiisa haysteenna waa loo caroodo kumaysa fiicnayn nebi maxamed markuu yimidna waa loo carooday walilkaafiriina kuwa gaaloobay waxaa u sugnaaday cadaabun cadaabkaasoo muhiinun sharafta ka xayuubiya waidaa goorta qiila loo yidhaahda lahum ayaga aaminuu rumeeya bimaa shaygii anzala uu soo dejiya allaahu alle qaaluu waxay leeyihiin nu'minu waan rumaynaynaa bimaa shaygii unsila la soo dejiya calaynaa dusheena bas wayakfuruuna way ka gaaloobayaan bimaa shaygii waraa'ahu kaa ka dambeeyo kasoo haray bimaa wixii waraa'ahu ay hayrahu ka aan ahayn walxaal huwa shaygan loo soo dejiyoo dambe alxaqu xaqu yahay musadiqan xaaluu yahay mid rumaynaya limaa wixii macahum la jirankooda ahaaday kitaabtii horeeta ku qornaa qul waxaad dhahdaa falima maxaybaa taqtuluuna u lahaynaysaan ambiyaa allahi ilaahay nebiyaashiisa u dilayseen min qablu hadda ka hor in kuntum wahadaad tihiin mu'miniina kuwa xaqa rumaysan ayib waxaa kaloo tafsiir labaada inta naafiya in laga dhigay in kuntum maa kuntum ma tihidin mu'miniina kuwa xaqa rumaysan